qisadan waa dhab waxayna ku dhacday gabar ka mid ah gabdhaha ku xiran aayaha TV nolosha. Aayaha TV nolosha waxa uu inta badan soo gudbiyaa qisooyinka ku dhaca shacabka Soomaaliyeed ee ku xiran boggan iyo waliba page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay ee aayaha TV. sidoo kaleetana waxaa qisooyinkan u soo qaadnaa oo ay dhalinyaradu inla wadaagaan. qisadan waxaa inoo soo dirtay inantan waxayna ku bilaabaysaa walaal waxaan rabaa bay tiri inaan idinla wadaago qiso jacayl oo igu dhacday ilaa iyo haddana i haysato. marka hore waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad u soo gudbisaan qisooyinka aayaha TV. aayaha nolosha TV marka aan bilaabo bay tiri qisada wallaahi waxaan inta badan igu wareersan talo oo waxaan sameeyo ayaan garan la'ahay. qisooyinka jacaylka inta badan waxa ay weerarisaa lamaanaha marka ay ku dhacaan. inanta waxay tiri wiil ayaan isbaranay dhowaan waxaana dhacda bay tiri inaan wiilkii jeclaado weliba si saa'id ah. wiilkii waan isla soconnay runtii wiilku markii aan rabo isaga waa aan wici jiray isagana marka uu rabo ayuu isoo wici jiray laakiin inta badan haddii uu isoo waco anigu taleefanka ayaan ka qaban jiray laakiin isaga markaan u baahdo badanaa ma heli jirin. marka aan rabana isaga waa aan wey jira bay tiri xitaa aniga haddaan waco mararka qaar ma uusan iga qaban jirin. markaan weydiiyo oo aan dhaho bay tiri maxaad iiga qaban la'dahay taleefanka ama aad ii soo wici la'dahay wuxuu ii odhan jira bay tiri inta badan biisi ayaan ahay. marka aniga runta ayaan u sheegay oo waxaan dhahay bay tiri isbeddel oo sidaani si maaha waxaan la doonayaa in haddii xiriirkaaga daacad uu kaa yahay aan si wacan ku wada soconno. wuxuu yidhi bay tiri oo sheekadeennu ay sii socotaba weli isma uusan beddelin wiilkii. marka wallaahi mararka qaar bay tiri waan isku dhacnay keliya isbeddel ayaan ka dalbaday laakiin maxaa dhacay bay tiri waxa isbeddela kamaan arkin 2 bil ilaa iyo 3 bil ayaan dhibana ahay. marka inta badanna waxa uu doonayay inaan xiriirkeena sii socno xiriirkaas oo aan ku tilmaami karo bay tiri mid aan lahayn xiriir joogto ah. waliba waxa uu ileeyahay bay tiri waa aan ku guursanayaa sanadihii ugu dambeysay oo aan wada soconnana wallaahi waxaan garan waayay bay tiri waxa wiilka uu iga damacsan yahay. aniga jacayl daran ayaa i haya oo isaga ayaan jeclahay hase haatee isaguna inta badan ima dareensiinaya bay tiri inuu i jecel yahay. bal eeg qofku odhanaya waan ku jeclahay waan ku guursanayaa haddana aan lahayn bay tiri xiriir toos ah. ninka hadda sidaas ii galaya miyaan guursadaa mise waan iska dhaafaa. waxa aan inta badan isku daya bay tiri inaan iloobo laakiin waa aan ku guuldaraystay. waa aan jeclahay welina kama hayo bay tiri wax xiriir ah oo isaga dhankiisa ah. naftu naf bay rabtaa naftuna naf kale bay rabtaa. kamama jeeda bay tiri inuu xiriir la leeyahay qof kale laakiin waxaan dareensanahay in wax ay si ka yihiin. dhalinyarada ku xiran aayaha TV nolosha waxaan jeclaan lahaa bay tiri in ay arrinkaas wax ila meel dhigaan oo ay fariimahooda iyo weliba qaybta commentiga ila wadaagaan waxa aan samayn karo. annagahaan waxaan odhan lahayn jacaylku waa mid jira qofka aad jeceshahay oo ay naftaada u baahan tahay muhiim ayay tahay inaad ka gulgaarto ama ugu dambayntii aad ogaato waxa uu kaa damacsan yahay. hase ahaatee haddii xiriirka kani oo lagu tilmaami karo mid luudaya oo aan horu socod ahayn waxaa kugu waajib ah inaad qiimayso maadaama qofka maanta aad guursanayso uu yahay qofka aad la noolaanayso in muddo ah. jacaylku waxa uu inta badan lamaanayaashu uu guulaystaa ka hor inta aysan isguursan in labada qofood ay isu soo wada baxaan oo ay si daacad ah isula socdaan markaas ayay lamaanuhu guulaysan karaan. jacayl la'aan waa nolol la'aan.